soo dhawaada asxaabta qaaliga waa aniga Cabdullaahi Daacada. Maanta waxay noo waday cashar muhiim ah kaas oo ku saabsan three apps ama 3 program kuwaas oo inaga muslim ahaan inoo wanaagsan bisha Ramadaan, kuwaas oo faa'iido badan inoo leh haday nahay dadka sooman bisha Ramadaan si wacan uga faa'iideysan karno. 3 program oo aan inoo soo xulay oo ah 3 version oo ugu dambeeyay intii lagu guda jiray bisha Ramadaan dhawaana soo baxay. way noo sharxi doonaa anoo mid isku dul taagi doona waxay qabtaan iyo waxyaalaha laynooga baahan yahay inaynu uga faa'iideysano. Hadaad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar, lana wadaag asxaabtaada kale si ay iyaguna uga faa'iidaan. sina faafi intaas ka bacdi waxaynu dul taginaa programka koobaad oo ah kaan inoo waday oo la yiraahdo Xusnul Muslim la yiraahdo. waa program ducooyin weeyaan. sidan ayuu soo baxayaa programkaas. si aad ula soo degtaana linkiisa waxaan idin soo dhigayaa description-ka hoose, halkaas ayaad kala soo degaysaan. programkan markaa ku dhufatid waa ducooyin weeyaan, wax badan ayaad ka faa'iideysaa. tusaale ahaan wuxuu leeyahay qaybahan kala duwan. halkan waxaad ka dooranaysaa ducooyinka la akhristo daily ama maalin kasta la akhristo ayaad halkan ka dooranaysaa. qayb ayay sii leeyihiin markaa iyagu ducada doonaysa ayaad dooranaysaa. magacyadoodu waxay ku qoran yihiin English ahaan ayay ku qoran yihiin. halkana waa ujeedaa iyagoo carabiya, ducadii carabiya iyo iyadoo English lagu turjumay weeyaan. imika wataa ducadii koobaad ujeedaan. اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. halkana waa lagaaga marinayaa tusaale ahaan oo kale waa lagu akhrinayaa. marka qaybta koowaad waa halkaa. dhammaan qaybahan kalena waa isla sidaas oo kale weeyaan. ducooyinka ku saabsan xajka kale, quraanka kale, salaado kale, ducooyin ku saabsan iyo dhammaan qaybaha kale ayuu leeyahay. halkan haddaad tagtina all ducooyinka oo dhan dhammaantood ayaad halkan ka wada heli kartaa si gaar ah. programka koowaad inii waday waa kaas. waxaynu gudbi doonaa kalabaad ayaynu gudbi doonaa. kalabaad waxaa la yiraahdaa Muslim Pro ayaa la yiraahdaa, loo soo gaabiyo professional. marka isagu waa ku eedaamo kale waqtiga salaada amaad ku save gareysatid waqtiga salaada. markaad dhex gashid Gmail ayaad ku furaysaa. Gmail kaaga ayaad gelinaysaa. waa ka inkoo Gmail-ka ayaan ku furnay.
kabacdi oo ka programkii dhexda ayaynu ugu jirnaa. waxayna tusayaa ama isaga ayaa si automatic isu gelinaya waqtiga ayuu kuu soo qabanayaa imika waqtigii ayuu soo qabtay. marka fajrigo kale wuxuu ku leeyahay waxaa la eedaamayaa 4 iyo salaada subax oo kale wuxuu yiri waxaa la eedaamayaa halkan waxaa laga eedaamayaa 4 iyo 28. marka waqtigaas markay gaadho ayuu kugu qaylinaya ama ku toosinayaa. halkan waad kaga xidhan kartaa waqtiga aad doonaysid. waa kuwan fajriga waqtigaas lagu toosinayaa. duhurka oo kale waa kaa, casarka waa kaa, maqribka iyo cishaaga intaba halkaas ayaa laga toosinayaa. marba qaybta uu soo gaadho ayuu is calaamadinayaa. ka saddexaad ayaan dul tegayaa si ma rabo inuu fiidiyowgu sii dheeraado, laakiin waxaan rabaa inaan si kooban aan mid kasta inaan u dul maro. ka saddexaad waxaa la yiraahdaa xadiis ayaa la yiraahdaa. waad ujeedaan kana markaynu dhex galnay waa axaadiista ayaa isaga loogu talagalay. waxaa ku dhex jira midhaa 10,000 oo xadiis ayaa ku dhex jira. markaa dhowr qaybood ayuu kala saaray. imika axaadiista saxiixul bukhaariga halkaas ugu sareysa waa ka bida u bixiyey. saxiixul muslimka xarafka m ayuu bixiyey. sunan an-nasaa'i, sunan abu daawud, jaamicu tirmidhi, sunan ibn maajah, dhammaan aduu ma soo koobi karo, aad iyo aad bay fara badan yihiin. markaan saxiixul bukhaariga aan doorto axaadiistiisa aan ku dhufto waa kuwan. haddana waad kusii dhufanaysaa. kabacdi marka ugu horeysa sidaas ayuu kugu soo saaraya, English ayuu kugu soo saaraya. laakiin halkan ay carabi ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. kabacdi waa ka xadiiskii oo caadiya ku soo baxay oo carabi ku qoran. intaad doonaysa inaad English ahaan aad u macneysatidna isla halkii waad ku dhufanaysaa. waad ujeedaan. qaybaha kalena sidaas oo kale ayaad u geli kartaa. kabacdi waad sii dooranaysaa. halkan waad ku dhufanaysaa. halkaas ayaad ka akhrisanaysaa. asxaabta share sii dhaha, subscribe tana noo saara, kambalelka furta si aad cashar walba ula socotaan. wassalaamu calaykum.